بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. إخواني، sida laga yaabo in walaalaha ay mar qaarkood yara baraarujiyeen, in sha Allah kelimadeena cawada waxay ahaan doontaa kelma la xiriirta acdaada islaamka, dhagarta iyo khiyaanada ay ku sameeyaan xaqa mar hore iyo mar dambaba. sidii alla noogu baraarujiyey subxaanahu wa tacaala, waxyaabaha qaarkood nabi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam lagu samaynayey wax ka mida ayaan soo qaadan doonaa. xaqiiqatan markii ikhwaha ay ugu baraarujiyeen mawduucan ama noqdo inaan ka hadla, mawduucan ayaan ku fikiray inaan ka hadla. mawduuca waxaa laga yaabaa qasadka hadda weyn oo ujeeddada inaan u soo bandhiga aan doonaya inaan cawada ka gaadhin baa dhici karaysa, laakiin ujeeddada ay tahay waxyaabihii dhacay oo nusuusta ay noo sheegtay wax ka mid ah oo adinkana garanaysaan oo badahiyaad ah inaan dadka ku baraarujinna, cawada isku baraarujinna. hadday fursad saamaxdana, hadday habeen dambe noqotay, hadday habeen kale noqotoba, in waaqic jira oo xaali ah inaan wax iskiga baraarujinna in sha allahu tacaala. tan kale, mawduuca waa mawduuc runtii ahlu cilmiga iyo culammadeenna in ay in badan ka hadlaan aan u baahannahay. sababta dhibaatadiisa maanta muslimiinta ka soo gaaraysa ayaa aada u ballaaran. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in aas mawduuca noqda bidaayat fatx oo lagu baraarujinaya muslimiinta cadowgooda khiyaanada ay u maleegayeen, ilaahayna uu guddigii subxaanahu wa tacaala. intaas kadib, ayuha alikhwa, intaanan kelimadeenna aan u jeedna dhex gelin, dhowr nuqda oo isku baraarujisa oo hadalka ka soo horreysa. nuqdada koowaad, qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala waxyi horta hadda aan sugno ma jira. waxyigii wakhti buu ka ekaayay, waa dhammaaday. nabi maxamed baa u dambeeyey sala allahu calayhi wasalam, saaad ogtihiin. waxyaabaha xaqiiqada oo jira oo qur'aankana taabsiiyey waxdii dambe oon u sugayna ma jirto. maalan nabi maxamed oo jooga calayhi الsalaatu wasalaam, qur'aanka asagoo si cumuum ah oo guud dadka ula hadlaaya, haddana waxyaabo dhacdooyin oo khaas ah oo wakhtigaas taagan ayaa qof kasta tilaabo markay dhacda ayuu soo degayay. sidaa darteed aad baa loo fahmaya oo looga baraarugayay. laakiin hadda xoogaa waxaad mooddaa, maadaama mar hore uu qur'aanka soo degay, dhacdooyinkii way taagan yihiin, qur'aankiina waa ka hadlay, baraarugiina waa yaryahay. in sha allahu culammadeenna nagu baraarujin doonaan biidni illahi tacaala wakhtiyaalka mustaqbalka iyo dhacdooyinka taagan, arrintaas noogu baraarujin doona. marka qofka muslimka ah mar kasta waxyiga haddii aas go-ay waxyaabihii uu hore u sheegin ay wax ka mida taagan yihiin, waa in uu ku baraarugsanaado sidii iskugu xir lahay labadan arrimood. walidaalik ahlu cilmiga waxay yidhahaan, qofka daaciga oo ilaahay diintiisa dadka ugu yeeraya, laba arrimood waa lagama maarmaan. nusuusta sharciga inuu garanayo, waaqica jira xaqiiqadana inuu garanayo, si labada shay iskugu xiran. arrimahaas ay iskugu xirmaan,
العلم بالنصوص والبصيرة بالواقع إن لبدا laga helo qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa dadka ugu yeeraya in uu yahay nusuusta sharciga ah qofku baraarugsan oo garanaya waaqica jiro oo isku dhaxnool yahayna wax badan ka fahamsan inuu yahay insha Allah waan arki doonaa culamadeena sida ay noogu baraarujin doonaan biidin Ilaahi ta'ala mustaqbalka noqdada kale oo xogaa baraaruga oo hadalka wardhaciisa waxa weeye ayuha al-ikhwa quraanka wuxuu ka hadlaa ummada dumeen oo naga horeeyeen waxyaabihii dumay ummado badan baa naga horeeyeen oo na tageen waxyaabo ay ku dumeen oo u halaagsameen wixii ayagayba ummadda u sheegaya ujeedada loo sheegaya waxa weeye inaan annagaan iska ilaalino ummadeenna ka ilaalino si qarankeena u badbaadiyo jiritaanka islaamka u badbaado ummadahaas ay u badbaadaan ee qisada bilaash la iskaga sheegi maayo way farbadin yihiin qisaska caynkaas oo quraanka Allah uu ku sheegayo subhanahu wa ta'ala ummadaha halaagsamay laakiin asagoo duubaya Allah wuxuu leeyahay walaw anna ahla alqura aamanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard walakin kadhabu faakhadnahum bima kanu yaksibun yani ummadaha idinka horeeyeen oo soo halaagniyo suurada suuratul a'raaf mesela ayad hadda aan ku sheegnay ilaahay uu ku soo sheegay qisaska ummadihii la soo halaagay wuxuu leeyahay rabbi hada iimaan iyo is-ilaalin taqwa Allah laga heli lahaa baraka adduun iyo baraka aakhira cirki iyo dhulka khayrkooda ayaan u furi lahayn oo waxa kor lagu noqdo oo khayrka lagu gaaro laakiin waa la halaagay ummadahaas wixii loo halaagayna waa tan ayadu uu ilaahay ku sheegayo walaakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ummadaha marka sidaas oo intuu qisaskoodii alla sheega wuxuu sababkii u halaagay uu sheegaya qisaskoodina waa lagu soo sheegay marka waxyaabaha loo halaagay ayaa lagu cadeynaya si aad adigu ugu digtoonaad arinta kale oo muqaddima ahaan ayuha al-ikhwa mawduuca ka soo horeysay waxa weeye wax ugu khatarsan maanta cadawgeena ay ku najaaxeen oo taqaanin waa wax la yaaba ilaa hurdadeena muslimiinta heerkaas ay gaartay waxaan maraynaa ummadii bulshadii muslimiinta in ay maanta wasaa'il al-i'laam koodi iyo nasharaadkoodi wax walba ay ka dhadhiciyeen inay dadka muslimiinta dhaxdooda ku jiraan dad dhibaatooyin wadaan oo la yiraahdo asal raac mutadarrifiin ay yihiin dadka ayaga maxaa lagu wadaa asal raac gaal raac miya قوانين راعمية عادة راعمية أصل راع ما حلو وذا أصل راع سومائهن معنيس كتابك الله ننك الراعي الله سبحانه وتعالى كتابك يسقفك الراعي يسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك الراعي سومائهن قفك أصلك الراعي إلا دينت أصول بيلا لهي أصلك دينت وكتابك الله يسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركب in ay noogala dhiga asal raac oo annagana aan aqbalno oo maartay aan leenahay dadkaas waa usuuliya waxay noqotay maanta wax bulshadii muslimiinta lagu qanciyay inteeda badan ilaa in yaro alla og yahay maahin hurdadeena ayaa heerkaas gaartay diinteena sidaan ugu fogaanay intaas waa waxyaabaha ay cadawgeena ugu guuleysteen bay kamid tahay maanta oo khuduradeeda ay aad u fara badan tahay oo dadweynaheena ku qanceen haddaan u noqono marka mawduucii waan ka hadlaynaa aan dhahnay oo ahay makriga acdaada ay sameeyaan oo islaamka u sameeyaan waqti hore iyo waqti dambe waqtiga dambe waxaan ula jeedaa qarnigan iyo quruunta iyo cusuurka hadda waqtiga aan joogna waxa dhacaya waa wax hadda kulay inaan hadda awada wax kaga hadli karna aan filaynin oo leeyahay inaan insha Allah mar dambe isku baraarujina la arkaa laakiin wax hore waxaan ula jeedaa wixii Ilaahay kitaabkiisa uu noo sheegay subhanahu wa ta'ala oo ummadaha hore qabsaday rasuul Ilaahay aabaheen aadam laga soo bilaabo ilaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam
waxyaabaha siirada nabi maxamed aan ku garanayna sala allahu calayhi wasalam oo cadowga uu kala kulmaayey. qur-aankii waa soo degaa marka arrintii buu nagu baraarujinayaa, wax kastuu noo sheegaya. xaq iyo baatil cadaawa ka dhexaysa had iyo jeer, laakiin ahlu baatil waxooda waa khiyaano iyo makri hoosta laga maamulaayo oo ahlu xaq la khiyaanayo. makri macnihiisa waxaan ula jeednaa qofka inaas bannaanka u keentid adiga oo in dhib u geysata doonaysid, wax asaga maxaa la dhibkiisa ah ayaad wanaag u tusinaysaa oo isku qancin si uu kaaga aqbala oo dhibkaa asaga u sameeya. marka gacantaada waxaad ugu geysan laheedba waa ka kaaftoontay, maadaama dhibkiisii adiga intaad tusisay ku qancisay asaga uu samaynayo. waxaad ka badbaaday inaad la dagaalanto dhib nabar u geysato si adiga lafahaadii maaragtay si aad adiga kuu dilin, asagaa is halaagaya. ama wixii maslaxadiisa ahay ayaa waxaad u tusinaysaa khatar inay yihiin oo khalad ah. waa makri. maslaxadii qofku uu lahaayey ayaad ka qancinaysaa ood leedahay waxaan khatar bay kugu yihiin ee ka dheeraaw. waa wax maanta ummadda haysta. qofku wuu iskaga dheeranayaa marka wixii waad ku qancisay, beddelkaas ka hor istaagi laheed oo kula dagaalami lahay waad qancisay. waa makri. makriga kaasaa dhaba, makriga dhabta kaas asaga weeye. mithaal haddaan soo qaadana maalan qur-aanka uu noo sheegay bilowgii nolosha aabbaheenna aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam, alla markii uu uumay asagii iyo hooyadeen janno wax walba yeelaan baa la geeyey. wax dhibaato qabay oo jannadan bannaankeedu u baahnaay ama kale oo inaad helo u baahnaay ma jirin. waxaa la yidhi uskun anta wazawjuka aljanna wakulaa minhaa ragadan xaydu shi'tuma. halkan iska deg adiga iyo islaantaada, wax walba oo doontaan cunid iyo cabitaan iyo raaxa. wax walbay la dhisnaayeen, wax nolol ah ooy u baahnaayeen oo qof u baahda ma jirin. markii sidaan jannada caynkaana la dejiyey waxaa loo raacay laba arrimood oo khatar ah. horta waxaa loo sheegay jannadaas dhexdeeda uu ku jira intii uu jannadan jooga waxaa la yidhi ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa. jannada dhexdeeda waxaad ku leedahay adoo wax walba ka cunaya inaadan gaajoonin. wax gaajo la yidhaha ma arkaysa. ina laka anlaa tajuuca fiiha. bani aadamka gaajada aad bay uga cararaan soo maha. wax intaanoo tacab iyo dhib loo maraya inaan la gaajoonin wey. ina laka anlaa tajuuca fiiha, inaadan ku gaajoonin dhexdeeda, walaa tacra inaadna aradin. aradka iyo gaajada xoogaha islaazimitaan baa ka dhexaysa oo xoogaha dulli baa ka muuqda qofka markaas aradin iyo daahirkiisa. gaajadana waa dulli daakhili oo qofka haysta oo dareemaya. wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa, inaadan oomin, kuleylna ku qabanin, qoraxna ku qabanin. oonka waa kulayl iyo dhib daakhili oo gudahiisa hoos qofka dareemaya. qoraxdana waa dhib bannaanka oo khaariji oo kulayl bannaanka oo maaragtay bannaanka ugu imaanayo qofka dareemaya. yani waxaa cajiiba ahlu cilmi masalada meesha waxay yidhaheen qofka waxaan ka faa'iidaysan ayadan masruufka waajibka oo qofka reerkiisa u waajibayo waa 4: anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa. inin guri la helo way soo maaday ayaa yidhaheen. noloshan buu haystay marka sidaana wax u cun, wax dhibna ma arkaysid. jannada dhexdeeda joogtaan. laba arrimood baa la tusiyey marka digtiin laga siiyey. dhinaca waxaa la tusiyey cadowgiisii oo la duud ahoo asaga dartii jannada loogu bixiyo halkaa taagan oo doonaya inuu jannada ka bixiyo. waxaa la yidhi yaa aadamu
إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى آدم nin kaan ma arkaysaa shaydaanka ah adiga iyo islaantaada cadowgiina weeye col buu idin yahay jannada asaga sababtiisa yaan laydinkaga soo bixin oo jannada yaasan idinka soo saarin haddaa jannada idinka soo saara dhib baad la kulmaysaan adduunyada dhib baad kala kulmaysaan ina laka anlaa tajuuca fiiha ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukhrijannakuma min aljannati waaba labay bahayeen fatashqaya ma loo dhihi wey fatashqa aadamkii la xadhiboonay Soomaa ninka laga rabo Soomaa inuu soo shaqeeyo meesha waxa laga hadlayo waxa way dhulka hadaad imaadaan jannada ka baxdaan kasab baa laga doonay dhib baa kugu dhici doona islaanta guriga iska fadhiisanaysaa kasabkiya laga rabaa islaanta laga rabaa Soomaa طيب fatashqa yayin kugu dhicin dhibkaas halkaas fadhiisan liir maarad jannada daaq cadowgaaga horta waa kan iska ilaali tan digtintan waa la siiyey wax kala la tusiyo aadam digtin kala waxa la yiri jannadan cuno oo wax walba ka daaqa wax walba ka helaysaan wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin geetan markaysan halkan geeta wax walba cuno jannada dhaxdeeda yeel biyo ibad miro iyo wax la cabi iyo wax la cuno wax walba laakiin halkan geeta u dhawaanin baliil cadowgiisina waa la tusiyey barwaaqadii jannadina waa la dejiyey halkoo geedahana waa laga reebay sidaan baa aadam faraha loogu qaaday aadam dee waa iska toosan yahay rabbigiis amarkiisii u maqlay xaaladiisa way wanaagsan tahay laakiin waxaa ku dhacay walaqad caydnaa ilaa aadama min qablu maxaa ka dambeeyey fanasiya iska iloobay xaaladii horta bani aadamka raaxadaada isku jiro mogta waa iska iloobayaan wax la faray iyo wax walba waaba iloobayba oo halkii uu iska joogay geetan inuu rabbi ka reebi uu ogyahay ninkan cadowgiisa inuu yahay waa ogyahay makri haddaas imaanaya marka shaytaan aadam markii la uumay oo u sujuud la yidhi baa jannada laga soo saaray oo sujuudi diiday uu ogyahay si kastoo aadan looga digay wuxuu maleegayaa xiilad aadam uu jannada ugu soo saaro jannadan asaga aas weeyey aadam sababtiis uu ku weeyey sidii asagana uu aadam ugu soo saari lahaa ballaankiisa kan weeye marka ma hurdaayo khasaaradii ku dhacdii buu arkaa aakhira waxba uma jiraan adduunkiina jannadii waa laga saaray aadam jannadii buu ku raaxaysan makri buu fikir buu bilaabay marka cadowgaaga markuu ku imaanayo marka oo jidka khaladka ku tusinayo jidkan khaladka soo mar kuma dhahayo waa inuu xiilad iyo wax kale ku raadiyo horumar iyo xurriye iyo cadaalo iyo sinaasho iyo waxun waa inuu raadiyo soo maa waxyaabaha cadowga ay raadinayeen maanta xiiladda dadka lagu khaldayo waa u imaadiyo wuxuu ku yidhi yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa bani aadamka inay iska noolaadaan way jecel yihiin inay mulki helaan oo mulki haystaanna way jecel yihiin si fiican buu u darsi khabiir psychology soo maa marka khabiir oo maaragtay yani mutakhasis yani oo nafsiyada mutakhasis ku awey wuxuu yidhi aadana haddaan ku tusiyey ka warran geedtaana sidaas xataa kuma bilaabin ka warran haddaan ku tusiyey geed ninkii cun uu waaraayo uusan dhimanaynin mulki joogtana uu helaya oo mulki aan dumaynin uu yeelanaya noloshan uu ku waarayo arrintii la yaab weye intii kuma ekaanin wuxuu ku yidhi maa nahaakumaa rabbukumaa can hadihi الshajara ilaa an takuna malakayni aw takuna min alkhaalidiin waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin wuxuu yidhi ilaahay idinkama reebi geetaan inaad malaa'ig noqotaan baa laga baqi malaa'igtaan inaad ku darsataan ood malag noqotaan adigii islaantaada ayaa laga baqi waana dhaartay oo waa u dhaartay oo wuxuu yidhi
ilaahay waan idinkugu dhaaran buu yidhi inaan nasiixadiinna dantiinna ka shaqaynaya dan kale ma wadi war meesha ka faa'iidaysta taladii maxay noqotay marka aadan ma la khaldin mise lama khaldin waa la khiyaanay aabba waa la khiyaanay godkiyaa lagu riday cadowgan jannadii inuu ka soo saaru doonayay faakalaa minhaa geetii bay ku dhaceen marka aabbaheenni abaweynkeenni aabbihi hooya geetii bay ku dhaceen way iloobeen wixii ilaahay shalay ka reebay way iloobeen ballantii way iloobeen cadow inuu shaydaan u ahay way iloobeen ilan waa la tusiyo layidhi ina hada caduwan laka walizawjik jannada ayn ka soo saarin in ayaga sababtoo jannaday ugu bixi karaan way iloobeen kafladaasaa loogu imaadee geetii bay cunin imsaa dhibaato qabsatay aabbaheen dabcan geetii markaas cunay isla markii digtiin baa la siiyo ilaahay waa u digay subxaanahu wa tacaala waa lala hadlay wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma ashajarati waaqul lakumaa ina ashaydaana lakumaa caduwun mubiin wasow geetankaan idinka reebi maayo wasow ma idin dhihin ninkaan cadowgiini wayso idinma dhihin shaydaan dabcan tawbaa imaaday way tawba keeneen ilaahay bay u noqdeen sidii ilaahay qur-aanka ugu sheegay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat ilaahay buu la kulmay oo ah rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin tawbadii way dhacday laakiin tawbadii ha dhacday maxaa jira maxaa dhib hoo gaari waxaa la yidhi horta ihbidaa minhaa jamiican horta dega jannada ka baxa jannadii hadda barwaaqadii iyo noloshii iyo wax walba haysatay ma jirtay dega jannada ka baxa xataa haddaad tawba keentay jannadii waa ka baxday dhulkaad aaday waa meel si looga noqon doono ilaaha nagu celiyey jannadii waa laga soo dejiyey kow amni bay haysteene waxaa la yidhi bacdukum libacdin caduwun cadaawo iyo dhibaatana dhulkaad iskula joogaysan oo dhulka haddaad tagtaan cadaawa idinka dhexayn cadaawaad tegaysaan cadaawaad la joogaysaan maarata waxaad darateen bani aadamki xataa kuwii muslimiintaha kala baxsan laho cadaawo iyo balaayo dhex taaganta shaydaan baa ku kala dhex jira bacdukum libacdin ballanqaad maalinta dhacay wey waa dhibaatada labaad oo amni la-aanta oo qabsatay jannadii waa laga soo baxay cadaawa iyaga dhexdooda iyo qalaq iyo amaan la-aan waxaa kaloo ku dhacay geetii mar alla markay cuneen dharkii jannadii ay hugsanaayeen oo jirkeedu ilaahay ku astiri oo loogu talagalay waa ka faydmay khalaas meel cidle way qaawanaadeen faakalaa minhaa fabadat lahumaa saw-aatuhumaa cawradii baa bannaanka imaaday dad qaawan bay noqdeen duray ku soo dhaceen hadday bilaabeen inay marka wax isku dhidhijin ilaan qofka cawrihiisa foolxumuhi qofka damiirka leh inaad cawrihiisa qaawanaad xoogaha waa foolxumi hadday bilaabeen inay caleenta jannada wadafiqaa yaqsifaani calayhimaa min waraqi aljanna waa dhibka kaloo ku dhacay wey isla markiiba ku dhacay intaas waxaa dheeraaday rabbi baa la caasay soo maaha inkastoo tawba imaaday wacasaa aadamu rabbahu fagawaa laakiin tawbadii ilaahay baa imaaday waa laga tawba aqbalay subxaanah ahlu baatil makrigii iyo khiyaanadii ugu horraysay oy sameeyeen oo ahlulxaq ay ku sameeyeen halkaasuu ka bilowday ilaa an yarita allahu alarda man calayha walaa shaka wuu soconaya qisadan aabbaheen iyo hooyadeen oo qur-aanka in badan alle ku soo celceli kilaax ma intaas ma ahayn rususha alle oo alla soo diray dhammaantood haddii ilaahay qur-aanka uu ka qiseeyey rasuulkaas iyo qoomkiisii makriga iyo khiyaanada ay ku sameeyeen wax ka mid uu qur-aanka ku sheegaya alla subxaanahu wa tacaala nabiy llaahi nuux oo awalu rusul ahay bacda abina aadam calayhim asalaatu wassalaam markii illa qoomkiisii iyo siday u caasiyeen uu ka hadlayay qaala nuuxu rabbi inahum casawnii waاtabacuu man lam yazidhu maaluh wawaladuhu ilaa khasaara maxaa ka dambeeya laakiin wamakaruu makran makri khatar ah ayay ku sameeyeen laakiin ayadda aad uma faahfaahinini waxaa kilaxuu laga dambaysay waxa way daatadiisi iyo lafihiisi wax usoo noqonayo maahin diintii makrigeedii buu ilaahay meeshiidii ka dabageeyey qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan arrimahaas uu ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala laakiin makri asaga lafihiisa ahay dabcan inay waa ku dilaynaa dhagaxan kugu dilaynaa yireen buu qur-aanka nooga sheegay akhiiran qoladii ahlu makrigeed alla subxaanahu wa tacaala inuu halaagi buu noo sheegay
mima khadi'aatihim uqriquu gafka ay gafeen iyo fidnadii iyo khiyaanadii ay maleegayeen ayuu alle u halaagay. si gaaban baan ugu soo gudubnay. waxaan ognaho ilaahay qur-aanka nooga sheegay subxaanaه wa tacaala nabiy llaahi saalex calayhi wacalaa nabiyina الsalaaةu wassalaam oo madaxdii qowmkiisii mujrimiinah intay isu imaadeen tashanayeen oo saalex loo tashanaya go-aanna lagu qaatay in kow laga seecow lana inkira in ayaga ay dileen ay inkiraan. ahlu tafsiirka waxay dabcan intaas waa intuu qur-aanka noo sheegaya sidaan arki doono ayadda qur-aanka ilaahayna ayaga halaag ku ridi doono. ahlu tafsiir waxay leeyihiin markii nabiyullaahi saalex intay dadkiisii beeniyeen aayad noo soo bixi ay yidhiheen ayaddii ilaahay ay imaaday oo naaqadii loo soo bixi hashi oy dileen wuxuu yidhi tamatacuu fii daarikum 3 ayaam 3 biri unbaad nolol haystiin buu yidhi guryaha ku raaxaysta wax cuna wax cabba 3 biri wax ka dambeeya adduunyada waa inkaga dhammaatay. mujrimiintii way fadhiisteen sida ahlu tafsiir ay leeyihiin ayagoo 9 siduu ilaahayna qur-aanka ku sheegay way fadhiisteen waxay yidhaheen ma 3 biri buu noo qabtay hadda caw aan ka siina asaga hadduu 3 biri noo qabtay annaga caw aan ka takhallusno. walaqad arsalnaa ilaa tamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani soo dhaaf intaasoo dhan wa kaana fi lmadiinati 9 rahdin yufsiduuna fi lard. qolo mujrimiin oo isku xidhno waxay aheen naaqadii soo dileen oo reer tamuud arrimahoodii ka qaalib noqdeen oo fasaad dhulka ka wadaan oo ilaahay qur-aanka ku sheegaya oo islaax iyo waxba aan lehna fasaad dhulka u joogaan oo isku xidhan. way dhaarteen waa isdhaariyeen qaaluu taqaasamuu billaahi maxaa la samayn lanubayitanna horta marka ugu horreysa aan wakti habeen oo cidnana arkaynin aan dilna yidheen kow ka siina uma lanaquulanna liwaliyihi maa shahidnaa mahlika ahlihi. dadkiisa waa laga baqa ma arkaysaa yani ilaahay nicamkiisa waxaa ka mid ah subxaana wa tacaala rususha markuu soo diraayo ilaa in yar sidii nabiy llaahi luud oo kala maahin dad difaaci karaan oo reer iyo qabiil difaacayin buu ka soo dhex bixin jiray subxaana wa tacaala. meel loo maraa la weyn jiray in badan rusushiisa ilan dad daalimiinuu ku difaacaya ilahay diintiisa hadduu doono. reer xoogle buu ka dhashay reerkii baa laga baqi waxay yidhaheen dadkiisa iyo qaraabadiisa aan ku dhaan nink intaan dilna habeen dadkiisa iyo qaraabadiisana aan inkirna oon maarata inaan waxaan aragniba la kulena maa shahidna mahlika ahlihi wa inaa lasaadiquun. rabbi wuxuu leeyahy wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun. ahlu cilmi bitafsiir waxay soo aruuriyeen markay aadeen nabiga ilaahay oo saalix ah gurigiisii inay meeshii uu ku dukanayay inay ku soo dilaan ilaahay dhagax buu cirka ugu keenay oo 9koodii baaba la dilay intaanba la gaarin qowmu tamuud halaagoodii 3 biri ayagii baaba la halaagayba. laakiin qowmu tamuudna kama dambayn ayagana waa la halaagay saalixna waa badbaaday. fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim annaa damarnaahum wa qowmahum ajmaciin fatilka buyuutuhum khaawiyatan bima dalamuu ina fii dalika laaayatan liqowmin yaclamuun. makriga ay samaynayeen ciribtiisa bal soo arkuu leeyahy alla subxaana wa tacaala fiiraya ayaga waan halaagnay kuwii ayaga oo khiyaanada maleegaayeen qoomkoodiina waan halaagnay guryahoodiina waa kuwaas iska hawanayeen oo cidlada oo wax jooga ayan jirin. fatilka buyuutuhum khaawiyatan bima dalamuu. laakiin yaa cibro qaadan qofkii ilaahay cilmi iyo diin iyo damiir siiyey baa ku cibro qaadan buu leeyay rabbi subxaanaه wa tacaala ina fii dalika laaayatan liqowmin yaclamuun. waa makri ahlu baatil ay maleegaayeen oy u maleegaayeen rususha ilaahay iyo ahlu xaqa ay u maleegaayeen walaa shak. makriga ahlu baatil ay maleegaayeen waa fara badan yahay. waxyaabaha alla qur-aanka nooga sheegay waxaa ka mid a nabiy llaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waxay ku gaareen go-aan in ay dilaan
طبعا ويهود إن كسروا هيك إسكان كرايين وليين جريك بيا هاين ما إن أنا كمان نهم واحد دونا باشيجين أيها هاين قوام وحيكو قاتين إن النبي عيسى دلنا لكن سبحان الله مكرق الله سبحانه وتعالى ضيع نينك أسقى يو إنه النبي عيسى دل لو دياري أيها الله وحكر دي الشبه النبي عيسى سورة النبي عيسى ما أسقى لقول دي قولدي وحدي لاين مركب قربك ما هي سميناين قولدي نينك ملح وهاي أيها سورة النبي عيسى إلهي كر دي أسقى بيدلين نبي عيسى إلهي كربه وقادي أذكر هذه قرآن كاسبه الله نوبي شيء وحيني فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواري ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ما حيسمين ومكر الله والله خير الماكرين أيها مكري باي سمين عيسى كاليس ودي لا إلهينا مكري بكسميو سورة دي سنت أيها نينك مثل لقول دي باي دلين يا مكري كيس يقوليست مكري الله يقوليست سبحانه وتعالى والله خير الماكرين المهم إلهي سبحانه وتعالى أهل الشر مكري وضع أهل الحق أي السمين أيين وإمامولين إن بلنبو قرآن كان نوغي شيئا وحن نوشيئا الله سبحانه وتعالى أهل القرى يعني بالداشة جرتي وردان أدونك دادك وضع ملاحظة مجرمين بايو بنايين ويهايين وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها اللي يمكروا فيها مكر باي سمينا إن خيانة ما أرجيسان لكن مكر قوضي خيانة ضوض أيكم بكسون نقن حدان سوقارنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكر خيانة دي لقسمي حدث ولا حرج وحو قرآن كشيء وحي سيرة نو تفسير لسي حديث النبي نو تفسير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك نو وريان أصحاب رسول الله أي نو تفسيريان نو عديان يعني ويبنايين waxaan ognahay inuu quraanka Allah nooga sheegay subxaana feerkii aska dhashiyo Quraysh go'aan inay gaareen fadhiisteen go'aankoodu uu yahay tashadeen araab kala duwan oo iska khilaafsan ay soo jeediyeen go'aankii la gaari uu noqday sida soo socod intaan ayada soo qaadin oo Allah ku sheegay markay nabi ku dhiboodeen sallallahu alayhi wasallam diintii u caroodeen asxaabtii sii badanayeen dhibaato badan haysato way tashadeen daaru nadwa meeshii guriga baarlamaanka sharta looga tashan jiray ayay iskugu tageen guriga markay ku kulmayeen waxa uu imaaday shaydaanka wuxuu iskugu sawariyay waxa uu yiri waxaan oday reer Najdi ah oo inaad kulmaysaan maqliyo idin imaaday shirkiinaan maqlo saasan ugu soo qayb galay buu yiri raayina waan leeyahay nin raayili baan nahay inaad raayigayga inaasan khayr ka weynin oo faa'iido ka weynin aan rajaynaa buu yiri oday reer Najdi muxuu sheeganaa shaydaan inuu yahay muusheegta laano shaydaan gaal insi way nacbi gaal iyo mu'min way nacbiin qof shaydaan maanta raali ku ah inkastoo ku wajar oo shaydaanku waa caabudan la leeyahay jiraan sakastaba kuwaas kristaanka iyo kuwa yahuudi iyo kulli wixii caynayeen shaydaanatan bay leeyihiin Soomaaliya shaydaan inuu yahay sheegan kara laano shaydaan inuu yahay day sheegtaan hadii uu sheegta way nacaayeen talana kama qaadanayeen khiyaano way marka isaga laftiisa khiyaano bilaabay marka wuxuu yiri oday reer Najdi baan nahay shirkiinana waan maqlay aad kulmaysaan raayina waan leeyahay waxun tala inaad iga weyninaan rajaynaa sidaasaan idinkugu imaaday buu yiri gurigii baa la fadhiistay xal yiri ninkan waana dhibay cuquusheenii baas waxaan jirin ka dhigay dadkeeni umadeeni midaysniyadaas kala geey ana xaqi baa kala geey markaysa wala shak umadeeni mid ka aheedo midnimada ku jirtay waa kala geey cuquusheenii iyo cuqaladeennina waxaan jirin sufuhu ka dhigay
ilaahayaalka annagiina waa ceebeeyey tala aan keenna nin baa hadlo wuxuu yidhi ninkan aan qabanna on guri ku xirna iridana aan qofal adag ugu jibinna hal dirishid yar aan u bannayna wixii cunno iyo cabitaan oo lagama maarmaana halkaas un aan ugu dhiibno ilaa uu ka dhinta oo xataa yahlika raybal manuunka intay ka asiibta aan ninkaas halkaas aan u dayna yidheen nin baa ra'yigaa soo jeedi duqi reer najdi waa qaylo wuxuu yidhi tala maayin buu yidhi waxaas qalad weeye maxaa jira asxaabtiisa way fara badan yihiin weeraray soo qaadayiin idinkana waa idin laynayiin gurigana waa jibinayiin waana la baxayiin buu yidhi marka taas tala maayin buu yidhi waxaa tala maayin tala keena run baad sheega layidhi duqan duq hadalkiisa run way duq ma taqaanin duq ibliis ahayo wey aabbaheen shalay jannada ninkii ka soo bixinayo wey duq run baad sheegay bay yidheen nin kale tala soo jeediyo wuxuu yidhi war ninkaan intaan ribti iska saarno aan iska bixinno oon iska fiijinna hanaga baxa annaga cid alla ciddiis wax u sheegaya ha u sheegay dhulkeenna aan ka masaafirinna wuxuu yidhi caqli maahin buu yidhi waad waalantihin war ninka candhuuf macaankiisa iyo hadalkiisa macaankiisa sooma arkin buu yidhi ummadda dhan intuu soo abaabusho ummadda dhan soo raacaan oo asagii laga daba imaado oo dhinac lala safta ayaa biri liidin kusoo duuliyo laydin halaagaa buu yidhi marka waxaas tala maahin buu yidhi khaladaas talad yani tala maahin taas waa isfiiriyeenoo waxay yidheen allah ila duq run buu sheegay talada duqu way jirtaa bay yidheen ninka ugu sharta badnaay reer maka abu jahl ayaa hadlay marka wuxuu yidhi tala ani waxaan hayaa buu yidhi nin ku fikir aasanan ku jirin tu lamid aadan keeni karaynin adinkana nin in kamid oo ku fikir inaad jiri aan u malaynaynan hayaa buu yidhi bal sheeg baa layidhi wuxuu yidhi wiilasha quraysh oo qiimaha badan aan soo diyaarinna tiri ka mid a wiil walba aan seef u dhiibna guriga habeenka saaxanaya aan waarida ka qabanna markuu guriga ka soo baxaya hal mar aan seefaha ku kulminna meesha ha ku dhintay qolalaan reer bani haashim jilibkaan reer bani haashim quraysh oo dhan inay la dagaalamaan ma awoodi karayeen quraysh oo dhan aana dishay ninkii